waftigii ballaarnaa ee xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ee ka mid ah wasiirka horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Somaliland, wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka, iyo waliba wasiirka hawlaha guud iyo dhulka ayaa maanta kulan ballaaran la qaatay maamulka gobolka Sool oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Sool, maayarka degmada Laascaanood, madaxda iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee hay'adaha dawladda ee ka howlgala gobolka Sool. kulanka ballaaran wuxuu ku qabsamay xarunta maamulka gobolka Sool. kulanka kadibna waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Sool mudane Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar oo sheegay in kulankaas uu ahaa dirdirgelinta howlaha dawladda ee guud ahaanba gobolka Sool si uu uga mahadceliyo waftiga wasiirada wasiirka horumarinta biyaha, wasiirka hawlaha guud iyo waliba wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin. saaka waa 12 November 2018 kulankeennani wuxuu kulan ballaaran oo muhiim ah guddiga nabadgelyada wasiiradii waftidii martida inoo ahayd saddexdii wasiirkii biyaha, wasiirkii hawlaha guud iyo wasiirka xigeenka warfaafinta, maayirkii degmada taliyaha qaybta iyo guddiga nabadgelyada barasaabka. amuurtaynu isugu nimi isuduwayaashii gobolka iyo dhammaan hay'adihii dawladda oo aan cidi ka maqnayn. amuurtaynu isugu nimi muhiimadeeda ay lahayd mid waa xaaladii guud ee nabadgelyada gobolka iyo horumarinta. amuurta labaad waxay ahayd barnaamijka shaqo qaran oo isaguna ka socday muddo 7 casho magaalada oo aad moodo dadkii siyaalo kala duwan loogu sheegay in tafsiir sax ah ka helin. labada qodob waxaan rabaa in aan labada qodob xogaa tafaasiir ka bixino. marka ugu horeysa shirka waa ku amaanayay waana ku mahadsan yihiin dhammaan hay'adaha dawladda. markii aynu sino wuxuu ahaa wandardaaranku wuxuu ahaa nabadgelyada xoojinteeda iyo wada shaqayn guudsi collective dawladdu inay isugu xidhnaato. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waftidan martida inoo la joogto xukuumadda ka tirsan. taa iyada saas inuu deerinaa dhammaan amuuraha jira wada jirka in looga qayb qaato. dhammaan hay'aduhuna mid walba ay shaqadeedii gaarka ahayd wadato hagada noqoto horumarin haday noqoto nabadgelyada. aad iyo aad baan idinku amaanaya waadna ku mahadsantihiin wasiiradana waa soo dhaweynaa mar kale. qodobka labaad aan rabno inaan halka ka hadlo ka cadeyno aniga maayirka degmada iyo dhammaan lagu isku dhar murta shaqo qaran waa arinta muhiimadeeda leh muddo sanad ay soo socotay. sanadka waxa ka shaqeynayay hay'ado gaar oo loo askeeyay agaasikeeda leh iyo dhammaan golaha xukuumadda muddo looga doodayay doorka amuurtani leedahay ee loo sameeyay waa mid aad iyo aad u muhiim ah. waa habkii shaqadani ay ku shaqo geli lahaayeen dhalinyaradu markii la hindisay ujeedooyin badan baa laga lahaa in dadka loo xaqsooro iyo gobolada laga lahaa in dadka jaamacadaha ka baxaya ee digriga sita ay xuquuqdooda helaan baa laga lahaa oo ay aqoontu shaqayso ay muhiimadeeda iyo priority-gooda yeelato. waxa kale oo laga lahaa inaanay iyo maaragtay cadaalad la'aan ka dhicin ee ay dadku aqoontooda iyo ku tagaan. waxa kale oo laga lahaa dadka shaqaalaha dawladda noqonaya in la xereeyo oo la tababaro. waxaa isaguna kulankaasi ka hadlay duqa degmada Laascaanood Cabdirashiid. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin. sidoo gudoomiyuhu sheegay waxa halka maanta shir aan ku galay isuduwayaashii aan cid ka maqnayn gobolka, maamulkii degmadii gobolka, guddiga nabadgelyada, waftigii ka socday dawladda dhexe ee wasiirka hawlaha guud, wasiirka biyaha, wasiirka xigeenka warfaafinta. shirkaas wuxuu daaranaa sidii kale loo dirdirgelin lahaa hawlaha. kulankan oo qaatay muddo saacada oo ka soo xaadireen 28 hay'adood oo ka howlgala guud ahaanba gobolka Sool ayaa lagaga hadlayay si loo dirdirgelin lahaa howlaha dawladda iyo waliba adeegyada bulshada oo haysta mas'uuliyiinta hay'adaha dawladda ee gobolka Sool. waa Barkad Cumar Axmed, warbaahinta dawladda Jamhuuriyadda Somaliland, Laascaanood.